xaaladda magaalada Laascaanood ayaa wali kacsan waxaana muuqata saansaan colaadeed iyo diyaar garow dagaal oo mar kale ka qarxa furimaha hore inkastoo maanta ay deganeyd magaalada iyo agagii lagu dagaalamay maalmihii la soo dhaafay haddana waliba muuqata waxa la oo lagu baajinayo in markaa dhiig daato Soomaaliland ayaa dhankeeda wada diyaar garow dagaal magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxa ka socda gurmad qabiil oo ay sheegeen inay ku garab istaagayaan ciidamadooda ku sugan Gooja Cadde waxaana la arkayay baabuurta waaweyn oo lagu soo qaadayo dhalinyaro beelaha Isaaqa oo loo wada goobaha dagaalka kadib markii jab xoogan uu soo gaaray ciidamada Soomaaliland dagaalkii u dambeeyay ee ka dhacay gobolka Sool saraakiil sare oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland ayaa ku dhintay dagaalkii dhacay 18 bishan waxaana loo qabsaday baabuur dagaal iyo maxaabiis lagu qabtay dagaalka waana mid keentay la soo daabulay maleeshiyad oo lagu buuxiyo goobaha dagaalka Soomaaliland oo isku dayaysa inay xoog ku qabsato magaalada ayaa wali u suurtagelin damacaasi waxaana ay isku dagaasi ku weyday goobo horle iyo difaacyo ay ku lahayd duleedka magaalada Laascaanood waxaana kala wareegay ciidanka deegaanka jab iyo guuldarooyin la hayatay Soomaaliland waxaana hadda muuqato rajabeelka ay wajahayaan ciidamada oo ay soo wajahday cabsi xoogan dhanka kale xoogagga deegaanka ayaa isku fidiyay difaacyo cusub ay kala wareegeen ciidanka Soomaaliland dagaaladii u dambeeyay ee dhexmaray inkastoo dhankooda aysan weerar ahayn haddana mar walba waxay gaarayaan guulo hor leh waxaana ay ku sii seeqayaan inay la wareegaan saldhigga buulaleyda ee Gooja Cadde oo ah saldhigga ugu weyn ee Soomaaliland ku leedahay agaga dagaalka